taagii saddexaad ee ay yeelato dekedda magaalada Berbera ayaa maanta soo gaadhay dekedda magaalada Berbera. Markii uu taagaasi soo gaadhay dekedda magaalada Berberana waxa ka hortegay maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil, ciidamada ilaalada xeebaha ee qalabka sida, isagoo halkaasina dhoolatus ballaaran ay ku sameeyeen doonyaha kala duwan iyo welibana taagaga kala duwan ee ay kala leeyihiin dekedda weyn ee magaalada Berbera iyo welibana ciidanka ilaalada xeebaha, kuwaasi oo soo gelbinayay taaggan cusub ee soo gaadhay dekedda magaalada Berbera. maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyo welibana shaqaale weynaha dekedda magaalada Berbera ayaana taaggaasi ku soo xidhay dekedda magaalada Berbera. ugu horreyna waxaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey kabtan Cabdiraxmaan, isagoona sheegay inuu taaggani wax weyn ka tari doono dekedda magaalada Berbera. haddana waxaa iskale madaxweynaha dalka, maareeyaha dekedda iyo maamulka gobolka oo dhan iyo shaqaalaha dekedda oo dhiirigeliyey awoodna saaray in ay ku shaqeeyaan, awooddoodana saaraan sidii wax walba ay uga hirgeli lahaayeen. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda weyn ee uu taaggani ugu fadhiyo dekedda magaalada Berbera. sanadood gudahooda waxaanu imika ku keenay taagii labaad iyo pilot boatkii cusbaa. ilaahay baa mahad leh. mar labaadka waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo run ahaantii u hagar baxay hantida intaa la eegay qarankana inaanu gelinno dib u dhis ku samayno dekedda noo ogolaaday. waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. mar labaadka dadkii lahaa muuse bixi handaraab buu sameeyey, waxaan maanta caddaynayaa hantidii u handaraabay inay soo goysay taagaga ad arkaysa intaa la eg ee qaranka. waxaan u sheegayaa bulshada reer Somaliland handaraabkii madaxweynuhu wax badan buu dhalay. waxaanu jecelnahay inuu sii handaraabo si loo qalabeeyo loona casriyeeyo kaabayaasha dhaqaale dalkan uu leeyahay. waxaanu leenahay madaxweyne aad baad mahadsantahay. intaa waxaan ku darayaa run ahaantii taaggii labaad oo isaguna la mid ah kii hore ayaa noo yimi. wuxuu leeyahay isaguna debdemis. baahidii loo qabay xagga badda in laga baktiyo haddii ilaahay nooma keene uu dab ka dhaco, alxamdulilah rabbilcaalamiin waannu isku filannahay. maanta deked ahaan diyaar baan u nahay in maraakiibta waaweyn ee maadarshibka ah aannu soo xidhi karno haddii ilaahay idhaa. maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo badha saabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, kuwaasi oo ku bogaadiyey maareeyaha dekedaha Somaliland sida firfircoon ee uu u shaqaynayo. madaxweynaha qaranka, siyaasadda madaxweynaha qaranka ee ku shaqeeyaan dhammaan hay'adaha qaranka haddii aanay suurtagal ka ahayn in madaxweynaha si hufan loola shaqeeyo may suurto gasheen inaan qalabkan helno. maarayahanu kumuu dhiiradeen, mas-uulkalena kumuu dhiiradeen. marka waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka ee dowladda fidiyey ee sii daayey ee mandateeka qofkuu leeyahay inuu ku shaqeeyo fasaxay. qodobka labaadna waxa weeyaan maareeyaha dekedda oo runtii isna intii uu xilka hayey wax weyn oo taariikhda marnaba aan ka duugoobayn oo qofka damiirle markuu arko oo ku nayaayirayo oo farxad gelinayso ka sameeyey intii uu maamulka gacanta ku hayey, isagoo mar walba ku shaqaynayay siyaasadda madaxweynaha la midka ah ee la capacity-ga ah oo caawin doona oo kordhin doona serviceka ay bixin doonto dekeddu. runtii inaynu maanta soo galbinno oo aynu xafladdan u samayno aad ayaan ugu faraxsanahay oo aan ka qayb qaato xafladdiisa. runtii waa qalab aad u qiimo badan. muddo yaroo gaaban waxay noo muuqataa inuu maalinta ka dambaysa uu soo kordhayo qalabka lagu adeegayo dekedda ee serviceka lagu bixinayo. aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa dadaalka Siciid laftiisa uu ku dadaalay iyo magaranaysaa shaqada fiican ee uu muujiyey iyo sida fiican uu meesha u maamulay, iyadoo ay qorshaha xukuumadda ay ka mid tahay. taaggaasi waxay u eg tahay maanta maalin aad iyo aad u farxad badan. run ahaantii waxaad maqli jiray waxaasi wuu arad baxay ayayn maqli jirin. dekeddii Berbera maanta way arad baxday weeyaan macnaheedu. waxaan leeyahay dadka ilaahay nasiibkooda ku simay inay maanta arkaan dekedda Berbera oo leh 3 taag iyo 2 boat baylood
dekedii 400 ahaydna ay maanta ay ku dhowdahay inay dhammaato waxa weeyaan waa dad aad iyo aad u nasiib badan waxaan kaloo leeyahay maareeyaha dekedda berbera oo runtii nasiibkiisu ku simay waqtigiisina ilaahay ku beegay in ay suurto gashay inta tani isaguna wuxuu xamdinaq iyo maxaa shukrinaq ayaa isaguna maanta u waajiba in badan baa waxa soo maray maareeyaal badan waxa soo baday maamulo badan midna nasiibkiisu kuma beegin run ahaantii qof walbana niyadiisa ayaa ilaahay ku risaqaa niyadiisa ayaana noqota muxuu ahaa isheeg u suurto gasha waxaan leeyahay run ahaantii waa farxad aad iyo aad u qiimo badan oo ah qof kasta oo reer muwaadin oo reer Soomaaliland inuu ku farxo horumarka intaa leeg waa wixii aynu higsanaynay ee aynu himladiisa sugaynay ee aynu raadinaynay waxaynu socod baynu ku jiraa maalinba shay baa inoo soo kordhaya maalinba shay baa kordhaya waxaynu u soconnaa inay noqono dekedaha caalamiga ah sida caadiga looga ganacsado ee ay ku soo xidhaan maraakiibta ganacsiga waaweyn yeelato oo kii hore kii ka dambeeyey saddexdii taag saaxil iyo cigaal iyo taaggan cusub oo iminka aanu soo xidhnay oo ah marooda jeex waa ilaahay mahadii waa waxa ugu muhiimsan ee dekeda yeeshaan ama ay servisyada ku qabtaan ee ugu muhiimsan baryo badan oo ayaa jirtay oo taaggaas dib nagu hayn jiray laakiin maanta ilaahay baa mahad leh saddex taag baa taagan waxa kaloo isna aanu maanta isna aanu daahfurnay baylad boodkii cusbaa oo isna hawshiisa dhammaatay sanaag isna la yidhaahdo ilaahay baa mahad leh ilaahay baynu ugu shukrinaqaynaa shaqaalaha iyo dadka asadkan aan gacanta ku haynayana waxaanu kula talinaynaa inay aad u dayactiraan oo ilaaliyaan ambaahay taliye saldhigga ciidanka ilaalada xeebaha ee berbera waxaana taanka kaga hortegey meel 105 mayl u jirta berbera oo ku beegan xuduudda Jabuuti iyo inagu kulley toole horumarku waa muuqdaa waxayna u soconaana waa wax qabsi aad baan ugu mahadnaqayaa ciddii ka hawlgashay iyo ciddii soo iibisay iyo cidda khaasatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ogolaaday in ay dekadu yeelato saddex taag maadaama ay dekadeeni ballaaratay waxaanu ka cadaynaynaa halkan hadaan anagoo muddo kooban baan ku iibin jiray dharka haweenka gobolka ka iibiya dekada ayaan ahay 22 sanadood baan joogay wax soo saarka inankaasi muddada kooban joogay uu soo saaray shacib iyo dadweynaha maanta ugu hambayeynayna Saciid International Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga Saab TV dekada magaalada Berbera